hadda waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay oo meel fog nooga yimid magaciisa la dhaho Jabirti Bayna waana gudoomiye ku xigeenka OYSU internationalka runtii ururka dhalinyaradu waa laf dhabarka halganka waa aqliga iyo maskaxda tomorrow waa xooga maanta waa jidka ay maanta ay noo jeexaan runtii waa jidkaan ku socon doonaan xornimada lagu gaari doono marka waana laf dhabarka waana u baahanahay dhalinyarteena inaan gacan siino garab siino maanta wuxuu nala wadaagi doonaa ururka OYSU iyo waxay qabatay iyo ururka habkii loo aas-aasayba walaalkay ku soo dhawo السلام عليكم waxaa iyana runtii salaan iyo qadarin iga mudan ciidanka qalabka sida jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeeniya ummadda reer Ogaadeeniya ee ku dhibaataysan Ogaadeeniya gudaheeda kuwa ku dhibaataysan wadamada dariska qaxootiyada iyo dhalinyarada anaga nala midka ee aan fursad u helin maanta sida xortay anagu OYSU ay u hadlaysa inaysan u hadlin saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waxa magaalada gobolkaas Minnesota magaalada Minneapolis inooga socday shirweynihii afraad ee qaaradda North America oo maantana ay ku aadan tahay maalintii ururka dhalinyarada OYSU la aasaasay OYSU waa urur ay ku midoobeen dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida Ogaadeenya waa urur leh 45 laamood oo ka shaqeeya adduunka dacaladiisa waxaa la aasaasay June 27keedii 2010 waxaa lagu aasaasay magaalada Copenhagen ee wadanka Denmark waa urur ujeedooyin mabaadi' asaasi iyo himilooyin intaba leh ujeedooyinka ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda Ogaadeenya OYSU haddii aan soo koobo waa mideynta fikirka iyo dareenka dhalinyarada iyo ardayda Ogaadeenya in si buuxda loo garab istaago halganka xaqa ee ummadda Soomaalida Ogaadeenya ay ugu jiraan inay iskaga dulqaadaan adoonsiga daashaday in ay dunida xorta u soo bandhigaan xadgudubyada iyo dulmiga gumaysiga Itoobiya shacbiga Ogaadeenya ku haya ee joogtada in saaxiibo qadiyada Ogaadeen taageera looga sameeyo muwaadiniinta dalalka xorta ku nool in si buuxda looga hawlgalo gudaha Ogaadeenya iyada oo la dhex galayo hay'adaha gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka lagana fulinayo hawlo lagu fashilinayo waxyeelada ay la maagan yihiin shacabka iyadoo dhanka kalena lagu sameysanayo laamo sirdoon oo soo gudbiya cadeymada dadka masaakiinta 24 saac loo geysanayo in dhalinyarada iyo ardayda lagu beero dareen dal iyo aqoon jacayl iyadoo la kobcinayo wacyigooda siyaasiga lana barayo taariikhda iyo duruufaha ku xeeran dalkeena iyo halganka intaba in la badbaadiyo la xifdiyo hidaha iyo dhaqanka toolmoon ee islaamnimada iyo Soomaalinimada si adagna looga qayb qaato fashilinta shirqoolada iyo barnaamijyada cadowga ee ku salaysan fikirka qabyaalada iyo fidma hurinta looga goleeyahay in lagu kala dhantaalo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Soomaalida Ogaadeenya gaar ahaan inta xorriyada jecel in dhalinyarada iyo ardayda Ogaadeenya loo carbiyo xilka lama huraanka ee sugaya mustaqbalka maadaama ay dhalinyartu yihiin mustaqbalkii hanan lahaa dhulkooda hooyo mabaadi'da asaasiga ee ururku waa la dagaalanka gumaysiga dulmiga cadaadiska xadgudubka xuquuqda aadamiga iyo cudurrada bulshada sida qabyaalada iyo waxyaabaha la midka jacaylka nabadda
horumarka xasiloonida iyo aaminsanaanta in habka wada xaajood markhaati la yahay wadada ugu haboon ee xal waara oo caadil ah lagu gaari karo laguna soo afjari karo khilaafka siyaasadeed ee Ogaadenya. tixgelinta qiimaha iyo waxtarka midnimada wadajirka iyo isku tiirsanaanta ku dhaqanka qiyamka dimuqraadiga ah ilaalinta xorriyadda iyo karaamada muwaadinka reer Ogaadenya ku dhaqanka caqiidada islaamka iyo tala saarashada alle ku qanacsanaanta halganka ay ummadda reer Ogaadenya ugu jiraan siday isooga dulqaadi lahaayeen gumaysiga TPLF himilooyinka ururku waa in la helo Ogaadenya oo xor ah oo u madax bannaan yihiin dadka iska leh in ay arkaan Ogaadenya oo uusan ka jirin dil dhac kufsigan joogtada ay 24 saac lagu hayo dadkii dhulka u dhashay ee awoow ku soo noolaa in ay Ogaadenya noqoto wadan xoogan oo ka dhisan kaabayaasha nolosha dhaqaalaha xooga aqoonta iyo wax kasta oo horumar ah intaas waa mabaadiida ujeedooyinka iyo himilooyinka uu higsanayo ururka dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida Ogaadenya waa iyadii oo aan soo koobay halkan maanta macnaha ma aha mid aan ku soo koobi karna hawlaha ururka dhalinyarada iyo ujeedooyinka loo sameeyay intaba waxaan rabaa inaan intaa ku daro maanta dhibaatada Ogaadenya ka jirta dhalinyarta weeyaan dadka ugu faraha badan ee hadda maanta ay saameynayso waqti xaadirkan sanadadii hore waxaynu arki jirnay ummadda Soomaaliyeed oo xeebaha ku baaba'aysa iyaga oo raba in ay u soo tahriibaan wadamada qurbaha maanta hadii aad dib ugu noqotid oo aad fiirisid dadka boqolkiiba 50 ku baaba'aya waa dhalinyartii reer Ogaadenya weeyaan ee xaq u lahaa in ay wax ku bartaan Ogaadenya gudaheeda ka shaqeystaan sida ay rabaan ugu noolaadaan OYSU waa cudud u soo baxday ummadda reer Ogaadenya halgankana halganka Ogaadenya taniya intii Ethiopia lagu wareejiyay soo socday qolo ayay ku soo wareejinaysay maanta ONLF ayay maraysaa hadii aysan Ogaadenya xoroobin cid la wareegaysa Ethiopia waxaan rabnaa inaan ogeysiino inay tahay OYSU oo u carbisan fahansan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysan jiray ummadda reer Ogaadenya waxay ahaan jirtay marka ummadi ay soo halganto ee ummadaas jiilkaasi marka uu waqtigiisii uu dhamaado ma uusan lahaan jirin dhalinyar loo carbiyay oo kala wareegta meeshii uu marayay maanta laakiin ONLF waxay soo gaarsiisay OYSU ayaa halkan ka sii qaadi doonta hadii ay Ogaadenya berri xorowdana dadka hanan doona dhulkoodii ee wax u bartay ee hadii ay noqoto caafimaadkii hadii ay noqoto maamulkii guudba la wareegi doona waa ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida Ogaadenya mudanayaal iyo marwooyin waqtiga inugu yar way fiicnaan lahayd inaan waqti fara badan haysano oo aan ka sii wada sheekaysano mabaadiida iyo ujeedooyinka iyo hadafka ururka dhalinyaradu uu leeyahay intaas ayaan ku soo koobaya Ogaadenya ha xorowdo gumaysiga ha dhaco idinkuna guuleysta